الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن ونكسن مركلة لمانبا أرضيدا كحرن دراسات كورسدان جافا programming language. وحندن كسلام يا سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسكي قدام بينا وحين سوق هذا ني program كان جيدان وأحسدا لو كريت كريو Java programming language أيضا الاستعمال addition of two numbers. program كان وحكي كلية سدا لو نمبر لا يسكدره هذه الله سبحانه وتعالى كرام نقطنا وحق من دونا حوجا extension أما إن البرنامج كي وينينو كليه ما دام وحدا إناس صاريو ما دام إلا هذا ما دام إناس صاريو سكدر كان لبا نمبر ونبدين دونا وحنكليه دونا سكدر كان لبا ترو كلاجر كان لبا ترو يسكدر فشلا وليبا اسكو قيبنتا هدي الله أبو دله وإدمه markii horena waxaan soo sheegnay qaybtan koowaad isku darka natiijada numberka koowaad iyo numberka labaad iyo natiijada soo baxaysa halkan waxaan ku dari doonaa maadaama aan u baahanahay inaan kala jar iyo ku dhufasho isticmaalno one variable saddexaad kan waxaan u bixin doonaa difference oo ah kala jarka labada natiijo oo la mid ah numberka koowaad oo laga jaray numberka labaad inta kadib waxaanu halka haynaa kala jarka laba natiijo wixii soo bixi lahaa mar kale waxaan isticmaalaynaa ku dhufasho aydan waxaan sameyn doonaa variable shanaad oo asagana noo kaydin doona natiijada marka la isku dhufto laba number halkan waxaanu ku soo yeeli doonaa markii laba number la isku dhufto waxa soo baxa waxa lagu magacaabaa productgana wuxuu la mid yahay numberka koowaad oo lagu dhuftay numberka koowaad ee lagu dhuftay numberka labaad qaybta ugu dambayso markaan helnay isku darka laba natiijo iyo kala jarkoodii iyo ugu dambeyntii isku dhufashadoodii waxaanu variable-ka lixaad u bixin doonaa waxa soo baxa labada number marka la isku qaybiyo oo ah remainder asagana wuxuu noqon doonaa numberka koowaad loo qaybiyey numberka labaad inta markaan haysano waxaan u baahanahay inaan print gareyno sidaas la mid ah waxaad kaliya u baahan tahay qaybtan koowaad inaad copy gareysid oo halkan dhigtid oo meeshaan samta aad ku bedeshid ereygan oo ah difference waa kala jarka labada number difference marka ugu dambeysana inaan mar saddexaad control B halkan waxaan ku bedeli doonaa product midda ugu dambeysana asagana control V afraad asagana waxaanu ku bedeli doonaa numberka ah remainder halkaana waxaa inoo yaali doona printf wuxuu noo sameyn doonaa mid walbo iyo ka dejintoodii total number meeshaan difference halkaana product halkan waxaa ka dhigtaa remainder halkaasaan ku haysanaa wixii natiijada halkaa kusoo baxana programtiisii kalena asaga bilowgiisa iyo sharaxaadiisa koowaad waxaad ka raadin doontaa videogii ugu dambeeyey
ee ahaa isku darka labada number kanna waa isagoo extension ah. markaan programka rangareyno waxaa halkan inoo soo bixi doonaa dhanka hoose natiijada markii labada number la isku daro. isku darka 15 iyo 20 waxay noo soo bixi doontaa 35. markii la kala gooyana waxaa noo soo bixi doontaa -5 oo macnaheedu tahay markii numberka koowaad oo 15 oo laga jaro 20 waxay ahayd inay noo soo baxdo maadaama ay weyn tahay kan -5. markii la isku dhuftan waxaa soo baxayso maxaa yiraahdaa 300. halkan waxay su-aasha ka imaan doontaa way ay 0 usoo baxday ayadana jawaabteedu waxay noqonaysaa maadaama labada number la kala jaray ay soo baxayso tiro jajab ah. halkan waxaan ku haysanaa number ama data type integer ah. si meeshaas aan ugu bedelno waxaan halkan ka dhigi doonaa float data type ah. marka marna rangareysid waxaa ku soo bixi doontaa 0.0. si natiijadaada ay u qurux badnaato halkan waxay nooga dhigtaa 10 ayraado 10. halkan waxay nooga dhigtaa 2. halkan kadib waxaa ku soo bixi doontaa tiraad si yani marka la isku daro oo 12 ah. markii la kala jarana waa 8. markii la isku dhuftana waa 20. markii la isku qaybiyana waa 5. marka waxaan dareemayaa inaad fahanteen darsigan arithmetic operation using Java programming language. programkina halkan uu noogu yahay intaan darsi kalamida aan ku kulmi doono waxay kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.